waxa uu raadinayaa meeshii uga bixi lahaa eedeymaha dul hoganaya ee la xiriira inay warcad ka sheegaan wariyaha la la'yahay ee Jamaal Khashoggi. waxa uu doonayaa in si hoose loo damiyo xiisadda ka dhalatay wariyaha dalkaasi u dhashay ee la la'yahay. wadamada Yurub qaybtooda sida Britain, Faransa iyo Jarmalku waxay ka dalbadeen boqortooyada Riyadh inay jawaab ka bixiso maqnaanshaha Jamaal. Senator Mareykanka ayaa cadaadis saaraya madaxweyne Trump inuu ciqaab adag dul dhigo Riyadh haddii aysan jawaab la dhageysan kara ka bixin tuunka muujinaya in Sacuudigu khaarajiyay wariyaha Jamaal Khashoggi. wariyahan reer Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi oo si weyn u dhaliili jiray boqortooyada Sacuudiga gaar ahaan dhaxal sugaha Mohammed bin Salman ayaa raq iyo ruux la laayahay kadib markii 2 bishan Oktoobar uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul halkaas oo uu ka doontay shahaadada guurka. madaxweyne Trump waxa uu asbuucii hore sheegay in ciqaab adag uu la kulmi doono Sacuudigu haddii uusan cadeynin dilka wariyaha Jamaal Khashoggi. Canada ayaa iyaduna sheegtay inay ka walwalsan tahay waxa ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. dowladda Turkigu hubanti kama dhigin in la qaarajiyay Jamaal Khashoggi, laakiin baaritaano ayuu dalbaday inay wadajir u sameeyaan iyaga iyo Sacuudigu. balse wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa ku eedeeyay Riyadh inaysan raalli ka ahayn arrintaasi. madaxweyne Erdogan waxa uu isagoo saxaafadda la hadlayay u rajeeyay wariyaha Jamaal Khashoggi inuu wanaagsan yahay, balse niyad jab ayuu muujiyay. maanta Isniina waxa xiriirka dhanka teleefanka ku wada hadlay boqorka dalka Sacuudiga boqor Salman bin Abdulaziz iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. waxaana boqor Salman uu wanaag u muujiyay xiriirka u dhaxeeya labada dal oo uu sheegay inaan la xumaynin. koox u tababaran khaarajinta oo ka tirsan waaxda amniga boqortooyada ayaa la rumaysan yahay inay galeen qunsuliyadda markii uu galay Jamaal Khashoggi, waxaana dadka inta badan ay rumaysan yihiin in la khaarajiyay wariyahaasi u dhashay Sacuudiga sida ay baahiyeen warbaahinta Turkiga oo si isdaba joog u baahinaysa muuqaalada la helayo. inta badan wadamada Carbeed sida caadiga ugama hadlin eedeymaha dul hoganaya Sacuudiga, balse waxa diblomaasiyad ahaan dusha uga dhacday Soomaaliya oo war-saxaafada ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay in Sacuudiga ay u muujinayaan inaan la cadaadin. maqnaanshaha Jamaal Khashoggi waxa kale ay wax weyn u dhibaysaa shirka dhaqaalaha Riyadh oo mar sii horeysay ay shaaciyeen maalqabeeno iyo shirkado waaweyn inaysan ka qayb gali doonin shirka. waxa laga cabsi qabaa in dalal muhiim ah sidoo kale ay ka baqdaan shirka si loo kordhiyo cadaadiska saaran Sacuudiga. majalada Mareykanka ka soo baxday ee Washington Post oo maqaalo uu ku daabici jiray wariyaha Jamaal Khashoggi waxay cadad ka mid ah boggeeda iyaduna ku qodhay missing voice ama cod kale la yahay. waxaana madaxda wargeyska Washington Post ay qabaan in la qaarajiyay Jamaal Khashoggi. warbaahinta Turkiga, Mareykanka iyo janaalka Al Jazeera ayaa baahinaya warbixino iyo barnaamijyo la xiriira dhacdada maqnaanshaha wariyaha Jamaal Khashoggi. Soomaaliya oo nugul u muujisay Sacuudigu waxay dadka falanqeeya ay sheegayaan arrimaha siyaasaddu inay dhexda kaga dhacday xaalad kacsan oo waliba ka dhaxaloosan laba dal oo muhiimad gaar ah u leh Soomaaliya. Turkigu waxa uu doonayaa in dhacdadan taagan uu iska bariyeero, waxaana muuqaalada uu soo bandhigay Turkigu ay muujinayaan in uusan Jamaal Khashoggi badqab kaga soo laaban qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul oo markii ugu dambeysay uu galay.